timihiisa madaxana 18 sano biyaha duunan taabsiin tayriya wax mayriya taya iyo daryeel saqaf wax saliida ugu tuurin misna ay tabtoodiyo ka tageen sidoodii ha nin see ah baad jeclaan lahayd inaad guursato ama nolosha la wadaagto Soomaalida xikmad ma hada ninba meesha bugta asaga gabasha hay leeyahay kala faado jacayl ayada Soomaaliyeed qorta buuga marka waxa ku jira jacayl matalayan ayay awoowe taxiyat raabta aad baan u jeclahay kulanti wacan wanaagsan daawadayaasheena qiimaha ay qadarinta mudan meel walba aad joogtaan iyo meel walba ay idin tahay halkani waa Hodman Show waxaan ahay Hodman Cabdi Geela ku soo dhawaada waraysi aad u xiiso badan waxaan noo martiyaa Faadimo Yuusuf Darbi oo ah qoraa Soomaaliyeed aad u qiimo badan isla markaasina qortay buug la yiraahdo Ebian Faadimo ku dar waxba ka reebay waaye jacayl dad badan waxay aaminsan yihiin buugga Ebian soo bixi lahaa anigu aan kamid ah inay wax badan hagaagi lahaayeen inta barnaamijkan daawanaysaana jacaylka ayada xubin ku ogaan doontaan waxa ay xasuusinayaa buuggan in lagu soo bandhigi doono 24 bisha 6 ee bishan ku jirna weeye hotelka Nomad ee xaafadda Islii soo dhawaada Faadimo ku soo dhaweynaya marka ugu horeyso runtii fursad iyo sharaf ay tahay inaad ku Hodman Show ku casuumo waa mahadsantahay walaalka calo waan dhawahay runtii farxad weyn bay tahay inaan caawa halkan kula joogo oo aynu caawa ka wada sheekaysanayno buugga Ebian marka aad baad u mahadsan tahay showgaaga adigu casuuntay kaliya ma ahay sida quruxda badan ee Nairobi ku soo dhaweysay ilaa Muqdisho aad ila safartay oo igu soo dhaweysay oo meelaha ay kala tilmaameysay marka waad mahadsan tahay walaal macaan ka badan qalabta runtii Faadimo ma su'aasha ugu horeysa waa tuma Faadimo Yuusuf Darbi Faadimo waxaan oran karaa waxaan ahay gabar Soomaaliyeed waxaan ahay walaal curada hooyadeed waxaan ahay qoraaga laba buugga koobaad la yiraahdo Ayaan of the Lucky oo af Ingiriis ku qoran iyo buuggan Ebian oo af Soomaali ku qoran waxaan kaloo ahay ardayd wax barata horeyna u baratay cilmiga engineering oo qalabka caafimaadka society-sa cabaarka soo shaqeynaysa ma sha Allah waa tahay Faadimo sanadii ugu dambeeyay waxa aad isku soo taray qorayaasha soo badanaya ee Soomaaliyeed waxa soo saaraya buugaag aad fara badan buugaag maxaa ka duwan yahay isleeda والله ما شاء الله horta aad baan ugu faraxsanahay inaan qorayaasho ay soo badanayaan waayo inaga in badan waxa leena yiraahdaa waxaan nahay ummad hadasho oo wax badan qorin marka aad baan ugu faraxsanahay in ay dadku soo badanayaan oo maadooyin badan wax laga qorayo waxaan oran karaa buugaygu wuxuu kaga duwan yahay inta badan buugaagta sheekooyinka ah wax badan oo sheekadun bay ku kooban yihiin iyo casharka gudbinayso laakiin buuggan waxa uu dheer waxa ku jira tafsiir badan aayad badan waxa ku jira handiska qofka hangiisa dhisaya waxa ku jira cilmiyo badan oo kala duwan marka jacayl kaliya ma waxaan oran karaa uu ka yara baaxad weyn yahay jacaylka waa tahay hadii aan uga faa'iideyno ama dadka waxay dadku buug arkaan waxay isdhay doonaan ama isla yihiin buuggan maxaa ku jira bal horta buuggaga maxaad ka qortay والله بوق وحفظ بقى قري أو كوكي هاي تعالك تعالك نوعية بدني هاي ونا كلواعية وقت بدني هاي مركو حاكو ترى تعال مثليا أي أو هو أو إنه هو بتسألني تعال الذي هراء يدك ورس إسكو تعالان ترين أما تعال كسوق سو قد بين ترين وحكلو كتيرة تعال هذا حق عصب وتعال هذا عصري جا وحكو ترى كله meel aan rabay inaan xogaa dadkeena aan farta ugu rafiiqo oo ah arin hada inaba haysataba ama dhawaanba soo badan doonta oo ah markaanu kala adduunka daafiisa ku kala firirnay dhaqamo kala duwan oo badan iyo afaf badan oo kala duwan baa la wada qaatay hadana dadkii Soomaali baa la wada yahay marka waxa ku jira gabar Nasra la dhaho marka iyadii odaygeedu waxay kala jilayaan Nasriyo reerkoodu waxay ka yimaadeen wadankii dhawaan bay qurbax tageen reerka guursaday Nasra u dhaxdana waa jiilkii saddexaad oo Soomaali badan ma yaqaanin xitaa marka xoogaa waxa imaanaya dhaqamadiiba meelo badan iska yara jiiraya hadana saasay tahay jacaylkooda caqabadaas way ka soo gudbaan oo uma ogolaadaan inuu ka dumiyo jacaylkooda marka dhowr waxba ku jiro kaas ka mid yahay waa tahay maxaad ku xirata Faadimo jacaylka ku qortay horta saaladu wanaagsan weeyaan jacaylka runtii waxa weeyaan waxay sheekooyinka markay noqoto sheekooyinka ugu wanaagsan ee ugu macaan ee la akhriyo waa jacaylku noloshu ka mid yahay
jacaylkuna runtii dee nolosheena dhan baa ku dhisan ama jacayl ilaahay ha noqoto ama jacaylka nabigeena sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadiisa ha noqoto ama jacaylka waalidkeena ha noqoto ama walaalihii ehelkii ummadii noocyo badan uu leeyahay ama jacaylka labada qof ee isjecel lamaanaha ha noqoto marka runtii dee noloshaaba jacayl ku dhisan nolosha dhinac walba jacaylku saameyn buu kaga leeyahay marka waxyaalo badan ayuu jacaylku ina bari karaa waxaana dhihi karaa waxyaalaha ugu muhiimsan ee qofka bini'aadanka noloshiisa qayb ka qaata. Faadumo waxay ku kortay dalka Mareykanka buugeedana runtii waxaa ku jirta suugaan aad u culus oo qiimo badan. Faadumo arrintaas ay kugu soo gashay walaal waxay igu soo gashay alxamdulillah horta suugaanta taxiyat raabtaba aad baan u jeclahay waxaan ku koray guri aad looga jecel yahay aad looga xiiseeyo suugaanta hooyo mar walba yaraanteeda waxaan xasuustaa gabayada aad u dhageysan jirtay marka waa jacayl waxaan isleeyahay laygu ababiyey noocyada jacaylku iga mid yahayba waa tahay Soomaalidu waxay ku mahmahdaa ninba meesha bugtaa asagay gabasha aysan kala faado jacayl ayada soo maray waqti buuga may waxa horta qofku inuu wax mal awaalo oo sheeko uu maskaxdiisa ka curiyo khasab maaha inuu wixii soo maray curusku waxa weeye waa inaad dareemi karto qiimaha wax uu leeyahay maskax aad ilaahayna uu ku siiyo maskax aad ku fikri karto oo wixii aad ku mal awaali karto ma ogiye ma aha wax aniga isoo maray sheekadan aniga ima qosayso waa sheeko waa fiction bookta la yiraahdo fictionkuna waa sida riwaayadaha oo kale marka de abwaaninteeni hore oo kale markay riwaayadaha inoo qorayaan oo la jilayo khas macnuhu ma aha in waxaas oo dhan ayaga soo mareen inta badan markaad wax qorayso waxaad ogtahay yani baahiyo community-ga ka jira ama ummadda guud ha ahaato ama adduunkaba ha ahaato marka waxaad leedahay waxaas waxaan kusoo gudbin karaa sheeko ahaan waayo qofku markii sheeko wax qaab sheeko wax loogu sheego sidii wixii u fahmo ay u galaan ay u fahmo aad bay uga duwan tahay marka toos loogu sheego wixii waana sababta keentay ilaahay buu inoo sheegay quraankeena qisas baa ka buuxa oo casharada leenagu barayo marka saasun baan waxyaalo badan oo is-iri u soo tabi ummadda oo dadka la wadaag ayaan igu dhaliyay qoro ma aha wax dareen aniga iga yimid oo ama jacayl aniga haya aad u mahadsan tahay buuga waxa ku jira sheekooyin badan oo aad u xiiso badan runtii aan ugu qayb ka akhriyay aniga mid baa si gooni ii taabatay bal intaan sheekadaas xiisaha badan iyo mulugta badan soo qabanin Faadumo bal tuucida ku jira buuga oo maansooyinkii gabayada ah keebad noo door lahayd balnan cabaar dadka kula maartay aan dawadeesho maartay u xulno waxaan inoo doorayaa hal xiraale adaan rabaa inaad furto aniga xiraale هذا فريسد ما صعباتك waa diyaarsan tahay nasra ayaa waxay weydiinaysaa abyan ninsaa baad jeclaan lahayd inaad guursato ama nolosha la wadaagto marka isagii bay qeexaysaa marka waxay ku bilaabaysaa tadcida koobaad waxay leedahay horta taaga dherarkii birta tiriiga laydhkiyo sayidka taaladiisiyo tinta guudka garigu isagoo turaabtiyo ku dul taagan arladoo aan tis qaadin cagihii aanan tuuran ciidoo isku taagin shay kale farihiisu taabtaan bal ninkaas waa nisaa hay okay talabaad tidacda la saddex tidac baan kaaga akhrinaya marka talabaatan way iska caddahay waxa weeyaan cilmikii u toosnaa waxa uu tacliin iyo kutub uu tawaab keentab u siiyey aadame tu waliba yaqaano af waliba ku taagsaday tanbal aan ahayno rabbi uu ka dhigay taam hanad weeye waxay leedahay tana marka dadka qaar waxaa laga yaabaa inay taabato aniga maaha waa ebyan iyadoo wixii daalaca qabsada waxay leedahay timihiisa madaxana 18 sano biyo haduunan taabsiin tayriya wax mayriya taya iyo daryeel saqaf wax saliida ugu turin misna ay tabtoodiyo ay ka tageen sidoodii isma badalaanba ninkaas ka ballaylayd waabi ninkeedii wadaga baxday marka saddexdaas tidc baan
kaaga akhrinaya fadlan waxaan rabaa aad ba horta buugaaga anigu hadii caawi bari wadna kama gayoolin laakiin qiso aniga aad ii taabatay waa ku jirto cajiib ah bal sheekadii Hanad iyo saaxiibtiis bulshada qaybta dambe ayaga buug akhrinta u dindana bal inta hore laakiin Hanad iyo Ebian waa laba waxyaalo badan bay jilayaan marka jacayl walba ku jirana caqabad gooniyo yaa soo marta marka Hanad iyo Ebian iyagu aad isku jecel oo jacaylkooda meel wanaagsan u marayo oo raba inay isguursadaan oo gurigii waxba diyaar yihiin ayuu Hanad uga baxay qalbi jab iyo xanuun iyo oohin iyo wax walba laakiin waxa ku jirta sabab muhiim ah oo ku keentay Hanad in uu ficilka ku kaco taasna akhristayaashan u deynayna uma sheegayno laakiin buugga intiisa dambe ayay ku jirtaa sababta iyo wixii keenay buugga intiisa badanna runtii waa dareenkii Ebian iyo marxaladii ay martay iyo sidii ay uga kabatay qalbigeeda u dhayday